sidaad muuqaalka ku jeedo ama muuqaalka oo kaaga muuqdo shalay sidoo ahaa iyo maanta sidoo yahay farqi badan baa u dhaxeeyo shalay wuxuu ahaa nin aan soo fuuli karin meeshuu fanaanka ka heesayo gabadhaas meeshii taagan tahay nin aan soo istaagi karin buu ahaa maantana wuxuu yahay nin meesha saas loo sido ama sida aad u jeedo muuqaalka ama klibka ugu jeedo marka noloshuba adduunyadu waa maalinba waa si marka u jeeda falaartana waa falaart qof lagu aadinayo waa isaga oo aanan meesha jarjarada uu taagan yahay dhankaas ayuu taagan yahay markana waa mar asxaabtiisa ama dadkiisa ama dadka taageero ay sas u qaadayaan ama barayaan marka waa speaker ama waxa mudan yahay ama dadka meesha mudan yahay sababta tahay maalin walba waa maalin waqti ku jiraya maalin waqti ka weecaya marka waa inta dadka maanta showga oo shanay oo isagana oo banaanka ka joogay oo aan soo fulay meesha oo la balay oo ka heesayo sidaan soo fulay ay maanta ama maanta showgiisu waa show aad u saameyn badan boqolkiiba boqol. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. waa idin salaamay waxa idin hadlay waa walaalkiin Sharma Boy waxa ka wada kulli ogtahay hadii Sharma Boy kula hadla maslaxa kula hadla hadii maslaxa kula hadla Sharma kula hadlay waa idin salaamaya waxa waaye hadda waa soo socda alxamdulillah Sharma waxa uga haray hawlay Djibouti noogu haray u dhameystiro asagana dee waa ogtiin caruus waa la sugayay asaas oo fasaxay haddana asadalkiiga sii horeeyay haddana waa soo socda waxa waaye أنا شرم مرتو قاوي عهو قارني ولقيني أكل هارين ولقين حتى ملكو دمانينا ولالكي وأكون حسي إن شاء الله وصوص على هاوشة على الوضرة ميلو البض تكتو وكل شيء صاحب قالي وحواي آداء وسلامة يا حمردن آداء وسلامة يا peace. sidaad muuqaalka ka soo aragtay fanaankan waa fanaan aad wada garanaysin justin adiga codkayga dhageysanayo aad garanayso fanaankan oo aan in hadda magaciisa ku sheego ama in aan ku falaqayo aan aad iyo aad ugu baahnayn waa fanaan waayo fiican ku jiro ama waayiisa sanadadiisa fiican ku jiro marka fanaankaas uu sheegayo si wuxuu noqoyihiin Sharma Boy isiga waa laba fanaan oo aad iskugu fahmay dhanka fanka isiguna wuxuu taagan yahay amal ama isiga ku hadlayo insha Allah taala hal meel ku wada dhiman doonaa ama hal meel ayaanba ku wada nolosha ku wada qaadan doonaa marka isiguna wuxuu joogaa markan Djibouti ayuu joogay marka laakiin wuxuu kusoo wajahnaa dhankaas iyo magaalada Muqdisho iyo showgii oo kusoo wajahnaa marka waa laba xalday kala laba fanaan oo aad iyo aad isku fahmo waaye ama laba fanaan oo noloshooda tahay boqol wax badan ku wada bartay ama isfahan labadooda isfahmeen markaana waa markii showgii oo yimaaday ama showgii oo fanaankaas oo hadda kan hadlaynay ama fanaankaas oo showgii oo soo socday oo dhankaas Djibouti oo soo tagay oo ku yimid magaalada Muqdisho showgaas uu ka soo qayb galay isaga iyo fanaanin aad u fara badan baa ka soo qayb galay marka waxaan dhihi karnaa waa fanaan